badiyaa waxaynu maqalnaa u dhageyna ku batay raggu ma hadal jecla ma jecla meelaha buuqu ka jiro hadalka badan ma jeclo wax yaroo kuuloo degan iyo waxyaalahaas u jecel yahay waxaasi waa sheeko ragga wax ka sheeko badan oo ka hadal badan ma jirto makhaayadii buu tegayaa uu soo sheekeynayaa wuu nafisay shaqadii buu joogaa wuu sheekeynayaa wuu nafisay jiimkii buu tegayaa oo stresskii oo dhan buu iska soo saaray ama kubad buu soo ciyaarayaa yacni aqalka ama guriga waxaa imanaya qof soo nafisay qof hadalkiisii oo dhan soo dhammaystay baa guriga imaada marka hablaha waxaan odhanayaa raggu way naga jaanis badan yihiin soo maanta muuqaalkan dumarkaa le wiilashu waa iska kaya daawadaan waa si looga hortago wixii anxiety wixii stress wixii xanuun nafsi oo qofka kusoo boodi karaa si aan uga hortagno ayaan u sameynayaa muuqaalkan waa wacyigelin weeyaan marka qofka bini-aadanka wuxuu u baahan yahay 3 arrimood inuu ku dhago waana taan doonaya inaan ku dhahdo aan kugu dhiirigeliyo haddii intaanad xaas noqon inaad imika sii barato markaad xaas noqotona aad weli sii wadato wherever kugu soo biira aad sii wadato waayo wiilkana yaraantiisii ilaa intuu weynaanayay isku routiinkin weeyaan kubadiisii buu iska tegayaa shaqadiisii buu iska tegayaa iskuulkiisii buu iska tegayaa wuu iska baxbaxayaa wuu iska wataa noloshiisa laakiin maxaa kusoo biiray adiga iyo ubadkii baa kusoo biiray kulleyba qof walba masuula space wuu sameynayaa uu arrimaha cusub ee noloshiisa kusoo biiray inuu waqti siiyo taasi kulli waa qasab laakiin waxyaalihii u muhiimka ahaa midadoodu raggu way wataan halka dumarku ay aada ugu yar tahay waxyaalaha muhiimka ah inay kusii wataan waxa weeyaan gabadhii sidii awal markay xaasaysato sidii awal ma u baxbaxayso warwareegii badnaa ma jiro sheekadii badan ma jirto asxaabtii imanisay ama ay u tegaysay way yaraanayaan waxyaalihii badnaayo u dhisnaa ayaa mar kaliya soo daadanaya taasna kolleyba waa dan reerkeyga iyo maslaxadiisa ugu jirta in dee meermeer badan iyo socod badan iyo dafdaf badan qofku iska yarayo waayo maanta markaad hooyo noqoto waxyaalo kale baa ku sugaya ubad la koriyo reer la hayo taasi waa shaqo aada u weyn haddaba sida anigu u fiirsaday dumarka waxaa ka maqan 3 shay oo aada iyo aada u muhiima una qofkaasi ka maarmeyn si uu ugu nafiso si uu stresska iskaga saaro ta u horeysata waxa weeyaan waa inaad heli kartood haysato qof aad la sheekeysatid okay waxaad oran kartaa odagii baa aqalkii joogan la sheekeysanayaa ciyaalkii baan la sheekeysanayaa way fiican tahay haddii time lagu siinayo lagula sheekeysto way aada iyo aada bay wanaagsan tahay waxaan ka wadaa qofka bini-aadanka wuxuu u baahan yahay inuu socialize gareeyo siyaabo badan baa lagu socialize gareyn karaa dad waxaa jira iska furfuran oo dadka dhex joogooga ayna dhibin iyo dadka dhex joogooga meelaha dadku ku badan yihiin madax xanuun ka soo qaaday marka anigoo kale introvert baan nahay introvertku waxa weeyaan waa dadka jecel goonida anigu goonida aada u jecelay maanta gurigeyga haddaad iga wareysato aaway shukri amba waxa lagu oran fadhigay joogtaa amba qolkeyga yacni haddii ay dadku meel ku badan yihiin more than 15 minutes haddii aan dhex joogo madaxay xanuunaa oo dabeecadan leeyahay marka dad baa jira aan buuqa badan ka helin xafladaha buuqa socodka meel baa layga casuumi ma ku raago xogaa baan joogaa waan iska socdaa dad baa jira dabeecadoodu sidaa tahay it's okay wayna ku faraxsan yihiin dadna way yar furfuran yihiin so adigay kugu xiran tahay laakiin haddana tiyood aad introvert tahay amba aad iska furfuran tahayba waxaa dhici karta waxaad u baahan tahay 100% qofaad la sheekaysato anu waxaan haystaa gabadhan aada isugu fiicannahay iskuulkaas la dhigan jirnay waabata keliya een ka indha garanayaba dadkaa badaneen isnaqaano sidii hore iskuma aragno xaas weeyaan aniguna hooyaanahay ubad baan haystaa isma aragna badiya laakiin haddana text message waan isaga warhaynaa waan isla soo hadalnaa maalin malaha 6 biloodba mar waan yar baxnaa waxbaan soo cabnaa marmar sanad bay isla gaadhaaba sanadan ismaanu arag maalin malaynaya inaad telefoonka waa iga badisee soo baxdee markaabaa la baxaa oo lasoo sheekaystaa qofka biniaadanka wuxuu baahan yahay qof xabad saaxiib kaliya xabad kaliya baba kugu filan 100 ma kuliyay qof kaliya oo la sheekaysan karto aad ku yar nafisi karto hadday ka badan yihiin way ka badan yihiin okay haddaad la bixi karto dhowr qof asxaaba bishii hal mar 2 bilood hal mar aday ku fiican tahay socialize garee because haddii aad ku jirto guriga
oo dadka aad garanaysuun madaxu iyo indhuhu ka bato maskaxda iyo indhuhu ay ka badato si kala la noqdaa inaad socialize garayso waad u baahan tahay sideed u socialize garayn kartaa meelahaad iska tegi kartaa xataa muxaadarooyinka ka qaybgal dadka aad dhex fadhido walow aanad garanayn dadkaasi inta aad dhex fadhidaba eed kolba weji arkayso kolba qof arkayso kolba dharkan ay xiran tahay dharkan ay xiran yahay kalaradan kala duwan indhihii waxyaalo kalaad soo tustay intaasabaad ku nafisaysaa bal u fiirso markaad guriga in badan joogto dadka keliyaad garanayso aad ku dhex jirto iyo markaad maalin meel tagto guriga markaad kusoo noqoto see dareentaa nafis baad dareentaa farxad baad dareentaa sheekaad haleelaysaaba inaad maanta xaafadii u sheekayso energy kalaa kusoo koraya marka inuu qofku socialize gareeyo waa muhiim marka waxaad u baahan tahay hal saaxiibo keliya hadday ka badnaadaan ikhtiyaarka kale laakiin hal saaxiibo keliya ood wici karto kusoo wici kara maalin ku yar saari kara maalin aad ka soo sheekaysan kartaan kusoo booqda aad soo booqato qofku waynu socialize gareeyo waana muhiim waqti xaadirkan waa waqti aad u adag qof kastuun ha iska baran qof kasta noloshaada soo gelin waynu noqon karo qof aamina naftaada aad isleedahay waxba ma kuu dhimayo qofkan ilaahina barideesi uu kuu siiyo dad fiican haddaad saaxiibka aad qofka asxaabta aad cid aad ku kalsoon tahay aad weydana dhib male muxaadarooyinka ka qaybgalo meel bulshaa dhex tag waxaad tagtaa meelahan lectureka laga bixiyo hadda maanta buug lasoo bandhigayo iska tag soo dhagayso dadkaa dhex fariiso energyga positiveka meesha ka dhacaya waxyaalaha muhiimka laga sheekeynayo impact buu kugu yeelanaya farxad baad kasoo qaadaysaa waxbaad soo baranaysaa marka waxbaba qofna ha raadinbe meelaha laakiin bulshadu wax ka baranaysa waxaad kasoo qaadan karto kasoo fahmi karto iska yartag bishii hal mar labadii biloodba hal mar ka yar dhexbax afarta gidaareed u baratay iyo afarta wajiyeed arkaysa mar walba ka yar dhexbax caafimaadkaaga ku xiran marka hawlihii gurigana dabeelaha ka dhigin noloshaada beelaha ka dhigin wax waad nidaamsatay wax badan waad nidaamsatay qof walba xaqiisi waad siinaysaa adiguna naftaada wax baad usoo kordhinaysaa farxad baad usoo kordhinaysaa marka inaad socialize garayso waa ku muhiim talabaad waa inaad dhaqdhaqaaqdo siad u dhaqdhaqaaqaysaa ogsoonow intaanad mas-uuliyaddan aanad qaadin ka hor waad bixi jirtay iskool baad tegi jirtay waxaad tegi jirtay waad shaqo tegaysay makadanba kule waad shaqo tagtaa laga yaabaa laakiin haddana dhaqdhaqaaqaasi waa maxay noloshaada isboortiga inuu ka maqnaan walaahi anigu si kastoo imika u cayilinahay oon u buuranahay isboorka marnaba ma daayo okay haddaan raba inaan iscayilo dawa inaan cuntadeeda wax ka bedelo laakiin imika cuntadeeda waa iska cunaahuno fahanteen marka cishana waa iska daaya oo si yaroo balance la maxaa cunaa way kilibqiya marmarna waa iska ritaande laakiin isboorka weligay ma daayo hadday tahay lugays hadday tahay inaan soo yar ciyaaro ku badiyar dhowr shuutan soo sameeyo trois points khatarad baan ku yahay weli maan iloobin marka waan dhaqdhaqaaqa marka dhaqdhaqaaq muxuu ku fiican yahay wuxuu ku fiican yahay jirkeena waxaa ku jira hormoono loogu talagalay waxbaa loogu talagalay mid waxaa loogu talagalay farxadda mid waxaa loogu talagalay firfircooni inaad ka qaado mid waxaa loogu talagalay inaad ka qaado qosol joie marka waxaa nugu jira jirkeena dhexdiisa waxa weeyaan hormoon maxaan oran karaa dheecaan waxa weeyaan meel buu iska yaalaa ilaahay baa inagu og maskaxdeena meel buu ku jiraa dheecaankan waxaan sida wuxuu jirka kusoo daataa marka sidaa maad aragta waxu dhusho kale markaad xoog saa wax ugu dhusho uu soo daataa tamaam markaad dhaqdhaqaaqdo ayuu soo tixtiixayaa dheecaankan taag ma fahanti markaas buu jirka kusoo sii deysmaya marka inaad dhaqdhaqaaqdo waad u baahantaho maxaa ka dhexlaysaa waxaa ka dhexlaysaa inaad meesha stresskii oo dhan ku shubto sida ugu daadiso wixii maskaxda ka guuxay oo dhan uu kaa soo baxo in hormoonadan jirkaaga kusoo wada faafay aad farxad ka qaado farxadana waa loo baahaya waa lagu nafisaa so arrinta labaad waxa weeyaan aad iyo aad u dhaqdhaqaaq weygii 4 jeer 3 jeer ku dadaal inaad dhaqdhaqaaqi karto lugee jiimka teg dhaqdhaqaaq waa inaad dhididid waad ku nafisaysaa aday ku fiican tahay halkaad xaafadda buuq la iman lahayd amba loo joogi lahayd waad soo nafisaysaa arrinta saddexaad waxa weeyaan nafteynu isagaa kuu sheegaya intuu garanayo markuu ka daalo markaa jirkeena waxaa loogu talagalay inaynu wax ku shubno inaynu wax barno intaad garanaysuun haddaad ku joogto jirku isagaaba culays dareemayaba culays weyn baad dareemi doonta
marka inta yarad garanaysun ha ku joogne jirkan waxaa loogu talagalay in wax lagu shubo in wax la baro marka wax baro wax usoo kordhi diintii baad baran kartaa maadigii baad baran kartaa luuqadaad baran kartaa siiradii nebiga ku noqnoqo taswiirka qur-aanka ku noqnoqo luuqado jadiida baro waxaad jeceshahay baro waxaad rabto 5 sano ka bacdi 10 sano ka bacdi markay ubadku kaa waaweynaadaan kule dream baad leedahay dreamkaaga maalintaas aad diyaar ugu noqoto maanta ka bilow adoo gurigaaga jooga iska dhex baro haddaad doonaysid ood u hayso waqti wiigii 2-3 cisho meesha waxaad u baahan tahay meel u tago soo baro hadday iskuul tahay hadday meel yaroo lecture laga soo dhegeysanaya tahay hadday tahay inaad gurigii ku dhex barato marka gurigii waa inaad ka dhex samaysato meel yaroo adiga ku gooni ah oo miis yar dhigato computerkii dhigato oo wax ka baran karto oo saacadaad wax baranaysana dee ubadkaaga discipline waad u samaysaa ama dadka kula nool in lagu mashquuliyo maaha waa in la yidhaahdo hooyo maanta waxbay baranaysaa aamusa hadalka hoos u dhiga marka guriga horta nidaamso gurigaagu inuu noqon karo meel la kala dambeeyo la kala xishoonayo la kala nidaamsan yahay si adigu waxaad u baran karto marka insha allah intaasaan rabay inaan saaka kusoo xasuusiyo haddii aad naftaada wax u qaban weydo waxaad noqonaysaa hooyo isku buuqsan hooyo wareersan hooyo aan markaad qofku buuqsan yahay wareersan yahayna uma hayo maxaa la dhahdaa maqsin amba inshaamba amba room baa la oran karaa room uma hayo space jacaylku qofka la siinayo uu kusoo dhaweyn karo jacaylku ubadkaaga ku hayaan jacaylku zawjkaaga ku hayo jacaylku waalidkaaga ku hayaan jacaylada kala duwan marka jacayladaasoo dhan ma u haynaysid space aad ku soo dhaweysid oo aad waxaasoo dhan u dareento waayo jacaylada dareenkiisa waynu u baahannahay oo waxa shidaalka noo ah oo waxaynu ugu dadaalayno qof walbaba aan leenahay qofkan wuu jecel yahay wayna aniguna jeclaado u dadaalo ma fahantay waxyaalahaba qofka kale u jeeda marka haddii hooyadu inay happy ahayn oo adigu aad samaysan weydo waqtiyo aad ku nafisto waqtiyaadu waxyaalo ku qabsan karto qofna uma haanaysid qofna uma helaysid time aad ku fahanto time aad ku soo dhaweyso jacaylka lagu hayo mana enjoy garanaysid agjoogooga markasta wax weeyaan buuqun baad ku jiray markasta waxaad ku jiray hadal markasta qofkani sidaan u eegay maanta lama hadal maanta waxba lama dhiibin maanta arrintii san ay awal ahaan jirtay san waa laga bedelay waxyaalo aan sidaaba u sii ahayn muhiim baad focuska saari doontaa marka waa inaad noqoto qof maskaxda iyo qalbiga ka caafimaad qaba taasna waxay u baahan tahay diinta inaad ku dadaasho cibaadada waayo cibaadada haddaad gaabiso shaydaanka albaab baad u furaysaa shaydaankuna dumarka ugu jecel yahay buu si yaroo fudud buu wax uga dhaadhiciyaa marka shaydaanka deeris kaga samee cibaadadaada waa inuu 100% ahaato ood xoog u dhan saarto kadib 3 arrimood kuu sheegay aad ugu dadaal happy ahow adduunku waa farcisho happy ahow naftaada ugu dadaal farxadaada ugu dadaal wallaahi daa naftaada ka fikir iska faraxsanow okay buuqa badan iska daa nafis adoo nafisay oo caafimaad qaba gurigaagii ku joog farxad insha allah aad baan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh